dagaalka tukaraq waa gardarro Soomaaliland soo samaysay oo mas'uul ka yahay madaxweynaha Soomaaliland oo ku soo qaadeen Puntland iyo xuduudadeeda ay ku soo qaadeen weeye gardarro xadaan weeye. waan gartay maxay kula tahay in dagaalkaas soo noqnoqday uu ku salaysan yahay garaad in loo sheego oo ninkaas ciidamadiisa meesha kala baxo waan maqlayay ra'iisul baarlamaankiisii reer Laascaanood baasha Maxamed Faarax xalay waxa uu sheegay Ingiriis baan siiyay buu isagu waayo Ingiriisku wax siiyay waa kee Lucy Laascaanood Ingiriis ciidaysiiyay sheekadaas oo daba soconaa buu yiri waa gardarro qalad ah oo qeyr nidaami ah weeye una baahan in run loo sheego weeye oo la yiraahdo George bixiyo waxa wadin ciidankaaga la bax dawo kale ay leedahay bale siyaasiyiinta Somaliland iyo odayaasha dhaqanku waxay sheegeen inay soo xiri doonaan xuduud ay leeyihiin taa ka waran waana weyn oo waayeel oo xogogaal baahay waxa oo dhami waa akhlaaq xumo iyo gardarro aan geed loogu soo gaban weeye xuduudka qabaa'il baa dadku degan yahay una deganaa weligii wax Ingiriis bixiyay iyo waxa uu leeyahay isaaq leeyahay oo Laascaanood la yiraahdo midna ma jiro baasha waxa uu ku hadlayaa waa akhlaaq xumo weeye absolutely akhlaaq xumo weeye waa la rabaa in run la sheego cidii gardarradeeda loo sheego waad gardaran tahay laakiin xagga jeelin beerka jeelin hayda jeelin dhexdhexaadka ka هذا وشقينيسا معها وأوين لو شو قرطردودا وحي ماشا كدعا أو كوغانا لبدا دينانا ديحي با مسؤولكا iyo wixii la aqliya waan gartay labada dhinac hadda waxay isku hor fadhiyaan dagaal oo laga cabsi qabo inuu maalmaha fadhiga ugu soo hayo uu qarxo marka maxay kula tahay adiga Puntland waxay leedahay waxaanu leenahay ilaa caynama aagada xuduudku iyagu yahay Somaliland ilaa iyo caday leedahay maxay kula muuqataa adiga waa runtood weeyaan koowaay Puntland xuduud beeleeday waajib baa ka saaran xuduudkeeda inay xaqiijiso inay laba calayso iyo waxa wanaag in la doono waayahay laakiin wanaaga hadii la diido Puntland iyada ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay inay xaqiijiso xuduudadeeda xaqiijiso waxa ay sameeyay reer Soomaaliland waa gardarro cadaan weey hadba haday hadda halka ka bilaabatana waxa weeye iyaga iskale dibdiga iskale xilba saaran kuwan xil inay xaqiijiyaan xuduudadooda inay xaqiijiyaan xilba ka saaran haday xilkooda gudan waayaan xabaashooda ha qoteen xabaashooda laqod odayaashiina dhaqanka Puntland odayaasha dhanka kale ma la xiriirteen ku soo dhaqankii mi sidaasan sheegaya wala hadalay idaacadaha ka hadalay kii aan u yeedhay oo loo yeedhay oo ka soo dhaqanka ka soo qayb galay halkan meeshan nagu dhaw boosaaso ku dhaw armo la yiraahdo calaamad saarkii dhaqanka ka soo qayb galay waa la xiray oo la xukumay oo 5 sanadood lagu xukumay oo Somaliland meel ka dhacay baa la yiri ciidamada hal kala raro ciidamada kala raro حاجة لقى ما دفسنا حاجة سالم سدودي كنا إذا ما ده هلا كمان كبر وكبر عن مال السلك كوهين ويعقل حماه السلك كوهين بس عالمك وحب ودا باقي دجال كسلوجو تشوتشني مقولتها إنه حلقة إيمان كنا مقولة سنكرا واحد عالم لا يدعى هو شراء ما شراء إنجليز ما شراء إنجليز ما هو صعدا سوالي لعبنا كوش هي ورنا محاكو عدينسا وقوسنا يسدد يتمكن ما يبان وقوسنا يوم درايس تيل باسبوها إن سيدا ليرو تبشي قبشو كهنا ونولي مركا إنجليز وحو لجرا سوالي oo Somaliland waa la iska sheegay Ingiriis siyaasadda Soomaaliya uu ku fashilan yahay wuxuuna la jira ama neglaska ha noqdo ama ay cheating Michael G waxa noqdo wuxuu la jira qabiil buu la jira waa fashion weey ma gardarada cidaada hadaan loo sheegin aantay kama jiro waxaas garta marka maxay kula muuqataa hadda xalka garaad hadii aan ciidamada balbixin dagaal inuu dhaco bay khasab noqonaysa khasab waa ku yiri inay wadankooda xuduudkooda
حقيقيا بدلان بمسؤولك سوي قرن ما إسلام كيغا